بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقال كنا ما تحن كارك دونا سيدا عوانكم مقال كنا كسو aragteen lacagta loo yaqaano cryptocurrency iyo maxay cryptocurrency runtii maqal waxaan kaga hadli doonaa cryptocurrency mowduuc dhameystiran waxa ay tahay noocyadeeda qaabka loo isticmaalo information dhameystiran waxaan kaga jawaabi doonaa muuqaalka 5 su'aalood oo ah waa maxay cryptocurrency sidee u shaqeysaa cryptocurrency ama lacagta cryptocurrency noocyada iyo farqiga u dhexeeya noocyada cryptocurrency maxaa wadamada qaar looga joojiyaa lacagta cryptocurrency faa'iidooyinka cryptocurrency iyo khasaaraheeda qaabka loo isticmaalo runtii inta inahaas aynu kaga jawaabi doonaa muuqaalka aynu ku bilaabno su'aasheena koowaad waa maxay cryptocurrency waa lacag digital ama lacag device-da electronic ay soo diraan lacagtan waa lacag aan cid maamulin waa lacag computer based waana lacag adduunka oo dhan laga isticmaalo oo loogu talagalay in adduunka oo dhan laga isticmaalo maqaasada kursiga waa lacag electronic oo computerada ama device-da telefoonada iyo computerada soo diraan taasoo leh application-o ka caawinaya inaad yada access garayso kadib aad dirto tusaalaha ugu fiican ay gula fahmi kartaan lacagta waxa weeye tusaale haddii wadamada Soomaalida waxa jira lacag la soo diro oo telefoonada ah haddaan qaar magacaabo waxa kamid ah saad iyo dahab sahal iyo qaar lamid ah lacagahaas sida la yaqaano waxa la isugu diraa telefoonada iyadoo aan lacag la taaban karo aysan ahayn cryptocurrency waa lacag sida lamid ah balse laakiin ka duwan lacagtaas oo lacagtaas lama mid aha balse laakiin waa qaabkaas oo kale ayaa la isugu diraa cryptocurrency muuqaalka intiisa xaqiisa dambe aynu ku arki doonaa farqiga u dhexeeya lacagahaas iyo cryptocurrency balse laakiin waa lacag la isugu diro qaabka ahna lacag ka duwan taas waayahay su'aasha labaad waxa weeye qaabkay u shaqeysaa cryptocurrency lacagtan cryptocurrency iyo halkay kaga duwan tahay lacagaha aan hor ka soo tilmaamay laga isticmaalo wadamada Soomaalida waxa weeye lacagtan cryptocurrency waa lacag aan cid lahayn ama cid maamulin aan si kala wadaado haddii aad san hadda ku tilmaamay sahal ama dahab aad isticmaasho waxaad ogtahay dhammaan telefoonkaaga aad lacagta ka dirto iyo lacagtaba inay maamulaan company-ga sim card-ka aad seeto tusaale dahab aad isticmaasho ama mid kale telefoonka ama sim card-ka aad isticmaalayso lacagta u adeegsanayso company-ga iskale ayaa maamula sida haddii ciladii dahabta kaaga timaado iyadoo aad ula tagtaa ama saad haddii cilad kaaga timaado waxaad ula tagtaa shirkadaas oo ku hagaajisa haddii lacag ka khaldanto iyaga ayaad u tagtaa si lamid ah lacagta marka la joogo si ka duwan aan idhaahday marka la joogo cryptocurrency waa lacag aan cid maamulin waa lacag aan cid lahayn adduunka nool waa lacag free ah waana lacag adduunka oo dhan loogu talagalay inay mideyso oo ka shaqeyso cidi ma maamusho intaad haysato cidi ma oga cidi kaama xiriiri karto cidi kaama maamuli karto marka waa lacagtaas oo hadaba say u shaqeysaa lacagtan waxay adeegsataa technology la yiraahdo blockchain-kaas waxa weeye waa computer fara badan kumanaan computer ama millions computer meel kala duwan yaala oo xaqiijinaya wax soo dirka iyo marka wax la soo diro transactionska computeradaas qaabka u shaqeynayaan cid ma maamusho cidina ma dhexgali karto lacag aad dirtay dib uma celin kartid oo hadda lacag dirto dib kugu soo noqonayso alla ilaa iyo qofka de lacagta aad u dirtay isagoo dib kugu soo celiyo mooyaan marka qaabkaas ayay u shaqeysaa noocyada lacagta cryptocurrency maxay yihiin way farabadeen noocyada lacagta cryptocurrency maalin walba qaar cusub baa soo baxa balse kuwa ugu caansan hadan qaar ka tilmaamo kan ugu muhiimsan ama ugu caansan wax loo yaqaan Bitcoin waa calaamada dollarka oo B ah baa symbol waa kan ugu caansan ka ku xiga waxa kamid ah Ethereum baa la yiraahdaa runtii isaguna ugu caansan okay kan saddexaad hadan ku daro waxa weeye isna wax loo yaqaan Monero waa kan ugu secure-san marka la joogo lacagaha cryptocurrency-ga lacagaha cryptocurrency dhamaantood waa more secure oo ma lacago security-goodu jilicsan sababaha loo isticmaalana waxaba ugu muhiimsan oo loo aado waa security-ga marka haddana iyaga ayaa leveladooda markay ugu sii sareeya waa Monero marka runtii muuqaalkan ma doonayn inaan kaga hadlo Monero sababta uu secure-ka u yahay maadaama taas ay doonayso in si deep dive ah u sii dhexgalo ama si aad u sii qoto dheer u sii dhexgalo lacagahan qaabka u shaqeeyaan okay haddaba taa afraad waxa weeye maxaa wadamada qaar looga xidhaa lacagta cryptocurrency waxa jira marka wadamo fara badan oo adduunka kamid ah oo lacagta waxaaba badan wadamada ka shaqeyso ee laga ogolayo wadamada ay ka xidhantahay haddaba maxay tahay lacagtan sababta loo xidho ilaa wadamada qaar loo dagaalamaan lacagtan waxa weeye waa lacag sanada ku tilmaamay qodobka labaad markaan ka hadlaynay waa lacag aan cidi maamulin waa lacag aan cidi lahayn
taas waxay keenaysaa inaysan dowladdii maamuli karin lacagtan. tusaale haddii iminka aad lacag bank isticmaasho oo lacag kuu taalo, dowladdu lacagtaa way kaa xayiri kartaa haddii aad si khaldan u isticmaasho ama ay dabagal kugu hayaan. sidoo kale way ogaan kartaa lacagta bangiga kuu taala, bangiga laftarkiisa wuu ogyahay lacagta kuu taala. sidoo kale waxaa jira sharciyada qaar bangiyada qaar lacagaha lagala baxaya ay xadidan yihiin. tusaale bangiyada qaar baa lacagta ku taala aanad hal mar la wada bixi karin oo marka hore ay ka mid tahay shishiisa la gelayso lacagta mar walba ku ogol in gaar ah inaad la baxdo. dhammaan waxaas oo kale waa marka si loo eego waa qaab lacagtaada oo kale lagu maamulayo u muuqan kartaa. marka lacagtan cryptocurrency cidi ma maamusho, cidi intaad haysato ma ogaanayso, cashuur cidi kaa qaadi kara mayso maadaama aan laba ogaan karayninba xadiga aad haysato. marka waa lacag uncontrollable. taas ayaa keenaysa wadamada qaar inay u arkaan lacag khalada kadib ay xidhaan. wadamada qaarna waa laga ogol yahay. marka runtii waxaa jira qaab gaar oo lacagtan wadamada laga ogol yahay looga isticmaalo, balse waxa badan adduunka saacada ku tilmaamay lacaga wadamada ay ka xidhan tahay ama wadamada laga bilowgareeyay in laga isticmaalo lacagta cryptocurrency. okay, so qodobka afraad waxa weeye faa'iidooyinka iyo khasaaraheeda. okay, maxay yihiin hadaba faa'iidooyinka? faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee lacagta cryptocurrency loo isticmaalo waxaa kamid ah lacagtan waa security. saacada ku tilmaamay lacag kasta oo aad haysato cidi ma oga. haddaad cryptocurrency isticmaasho, haddii $1 billion cryptocurrency ah aad haysato, bitcoin ha noqdo, ethereum ha noqdo ama monero ama kuwa kale cidina ma ogaanayso lacagaha aad haysatay intay leeyihiin, cashuur cidi kaa qaadi mayso. sidoo kale lacagaha aad dirto cidi ma cancel karto. saacada ku sheegay haddaad bangi isticmaasho, aan bal tusaale soo qaado, haddii aad waxaan filayaa inaad wada taqaaniin bangiga weyn ee loo yaqaano PayPal ee internationalka ah. mid kamid ah heshiisihiisa waxaa kamid ah tusaale inaanad waxyaalaha qaar lacagta kuugu jirta akoonkooda ku iibsan karin. haddaad u baahato tusaale hub oo kale iyo wax lamid inaad iibsato, way bilowgaraynayaan transactionkaas oo lacagtaas ma diri kartid. runtii halka marka la joogo lacagta cryptocurrency yani dee aana cidi maamulaynin, cidi ogeyn waxa kugu jira waxaad iibsanayso, ifan lacagta qofka wax ku iibsanaya ma ogaanayso. haddii la arko transaction aad samaysay, qofka transactionkan sameeyay cidi ma oga, cid allaale ciduu yahay, meel ku nool yahay, profilekiisa, informationkiisa cidina ma ogaanayso. marka runtii waa lacag security-ga xagga security ugu muhiima. sidoo kale waa international, faa'iidooyinkeeda waxaa kamid international. tusaale haddaad imika ku nooshahay waddan ku yaala qaaradda Africa, waa tagto waddan ku yaala qaaradda America, runtii haddii aad waddankan Africa lacagtaad haysato markaad doonayso inaad America la wareegto, waxaa qasaba lacagtaas inaad u bedesho lacagaha laga adeegsado waddanka aad aadayso. halkaba kala joogo cryptocurrency wherever you go, meel kastoo aad tagto lacagtaadi kula guurayso, isbedel male, waxba iskama bedelayaan. markaa runtii waa halkeeda. ta saddexaad waxa weeye waa laga ganacsadaa oo lacagtan waxaa jira dad sariflayaal isku bedela lacagtan oo isku bedelka lacagahan ka faa'iideysta, kaa iibinaya lacag cryptocurrency bitcoin ha noqoto ama mid kale ha noqoto, ku siinaya markaa aad lacag ka hesha siinayso, iyo qaar lacag aad adigu ka iibinayso oo lacag ka hesha. marka runtii halkaana waa muhiim bay ka leedahay. haddaba khasaaraheedu muxuu yahay? mid kamid ah khasaaraha ugu weyn ee ay leedahay lacagtan waxaa kamid ah lacagtan security ama cyber security marka la joogo safety-ga internetka ayay dhib ku haysaa. tusaale mar badan waxaan aragnaa hackerska qolada jabisa ama sida khaldan uga faa'iideysata internetka qaab xun u adeegsata. markay sameeyaan inay waxa gareeyaan kadib tusaale kale waxay ku xiraan wax loo yaqaan ransomware ama noocyo kamid ah virusyada halista ah, kuwaasoo computerka yani lagu install gareeyo dhammaan xogta ku jirta encryption ku sameynaya ama xogta ka dhigaya form aan la akhriyi karin, qofka filekan viruska ku duubay kaliya akhriyi karo. kadib waxay weydiiyaan madax furasha dadka, cidda ugu badan ay waxaan ku sameeyaan waa dowladaha, kambaniyada iyo wax lamid ah. okay, haddaba markay waxaan sameeyaan waxay ku xidhaan dadka madax furasho in computerka lacag la bixiyo si ayaguna uga furaan viruskana ama malwarekana ku xidheen. kadib markaa waxay sameeyaan bitcoin ama ethereum ama cryptocurrency account ah bay yidhaahdaan lacagta loogu diro. haddii ay yidhaahdaan account ama bangiyada caadiga lacag noogu diro dheh saan idin ka furno, markaba waa la ogaanaya maadaama dowladuhu la hadlayaan bangiga, kadib bangiga la weydiinayo accountka cidda le iyo halkay ku nooshay iyo IP addressadii ka booqato iyo locationkooda iyo wax lamid ah iyo informationka isku register gareeyaan. kadib si fudud lagu ogaan karo dadkaas waxay isticmaalaan akoonnadaas
kadib akoonnadaas ayaa lacagta loogu diraa cidima ogaan karto markaa akoonkan bitcoin-ka qof kale hadduu ka kugu xiga yahay hadduu hortaada joogo iyo adduunka meesha doono ka joogo cid alaale cid ogaan karta qofkan meeshuu joogo ma jirto sidoo kale qolyaha burcadbadeeda kuwa iyo qolyaha hubabka iibsadayo iyaguna lacagahan ayay wax ku kala iibsadaan maadaama markay hadday yiraahdaan bible ama akoon kale isticmaala markaba la ogaanayo lacagtan wax hubka iyo waxay siisanayaan iyo website-ka wax kaga iibsanayaan kadib marka lacagahan inta ugu badan dhibka waxay ku hayaan waa qaybta cyber security-ga okay haddaba lacagtan qaabkee loo isticmaala lacagtan waxaa loo isticmaala waxaad u baahantay waxaa loo yaqaana akoonada la samaysto horta wallet waxaad furanaysaa akoon loo yaqaana wallet kadib akoonkaa markaad samaysato akoonkaagaas ayaa lacagta lagugu soo diraya laba siyood baa lacagta lagu helaa waa inaad iibsato iyo inaad mayngarayso lacagtan waa la qotaa adigoo imika hadaad u baahantay lacag cryptocurrency uma baahnid mararka qaar inaad iibsato laakiin waxaad samayn kartaa inaad samayso wax la yidhaha mining inaad lacagtan adigu ka mid noqoto kombiyuutarada blockchain-ka laba siyoodba haddaad telefoon fiican seetana waad kaga faa'iidaysan kartaa haddaad computer seetana waad kaga faa'iidaysan kartaa inkastoo ay u baahan tahay power fara badan ama electricity fara badan ama koronto fara badan ku baxayso sidoo kale computer ama telefoonkaad isticmaalaysana CPU-giisa runtii aanad isticmaali karaynin inta uu miningka ku jiro runtiina uu u baahan yahay device performance wanaagsan yahay oo CPU-giisu wanaagsan yahay memory-giisuna wanaagsan yahay marka haddaad u baahantahay inaad mayngarayso dabcan muuqaalkan kaga hadli kari mayno ka baadh internetka qaabka loo mayngareeyo balse haddaad u baahantahay qaabka loo isticmaalo oo qodobkeenu ahaa waxaad samayn kartaa waxaad la soo degaysaa mid ka mid ah wallets-yada marka runtii waxaa jira a lot of applications wallets ah oo aad cryptocurrency-ga u isticmaali karto qaarkood waa nooc gaara qaarkoodna waa badan yihiin marka runtii waxaa ka mid ah ethereum oo aad u adeegsan karto oo bitcoin monero iyo qaar fara badan runtii xagga hoose muuqaalka ayaan kulli faaqi doonaa linki inta ugu caansan wallet-yada aad la degi karto kadib aad akoonka ka samaysan karto haddii muhiim noqoto qaabka akoonka loo samaysanayana runtii xagga hoose inagu reeba commentiga muuqaalka kan ku xiga insha allah ama muuqaaladeena soo socda kamid ah ayaynu kasoo diyaarin doonaa marka qaabkaas ayaad u samaysan kartaa sidoo kale walletka laba qaab baad u samaysan kartaa mid waa inaad application la degto midna waa inaad website cryptocurrency-yada kuwa kamid ah aad dhaado kadib website-ka dhexdiisa aad kusii samaysato wallet mid kamid ah website-yada aan ku tilmaami karo kamid ah oo aan filaya ka ugu caansan yahay Coinbase mid leeyahay marka runtii ilaa labada website ugu caansan iyagana magacyadooda xagga hoose ee muuqaalka hoostiisa qaybta hoose muuqaalka ama description-ka ayaan dhigi doonaa magacyada website-yada saad u booqataan runtii muuqaalka intan ayaan kusoo afmeeraya waxaan rajeynaya inaad wax fara badan lacagta cryptocurrency ka fahantay qaabkay u shaqayso sababta wadamada qaar looga xidho faa'iidooyinkeeda khasaaraheeda iyo qaabkaad u isticmaali kartaba muuqaalkan sida hadda kor ugu tilmaamay intan ayuu ku kooban yahay haddii aad muuqaalkan inuu wax ka faa'iideeyo oo aan runtii rajeynayo like inoo saar haddii aanad waxba ka faa'iidin waqtina ku halmay iyadana muuqaalka dislike gara haddii ay tahay markii kugu horeysay kan lagaad soo boqoto ama aad yani kanalka hore ugu xunayd balse weli aanad subscribe garayn subscribe inoo saar muuqaalkan kan ku xigantaan ku kulmi doono annaga idinka waxaan rajeynaya khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu